maantay waa maalin weyn oo taariikh ah sababtu waxa ay tahay magaalada Barawe oo ah magaalo madaxda dawlad goboleedka Koonfur Galbeed waxa bilaabatay astaanteedii dhabta ahayd oo ahayd inay magaalo madax noqoto ummadda Soomaaliyeedna isugu keento halkan reer Koonfur Galbeed gaar ahaan reer Barawe waxaan leeyahay hambaliyo furitaanka aeroboorku marka waxa uu wax ka tari doonaa isu socodka dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan doorkii magaalo madaxda Koonfur Galbeedna maanta ayaa dhidibada loo aasay waxaan leeyahay hambaliyo reer Barawe arrinka labaad oo halkan aan rabo inaan ka sheego waxa ay tahay maadaama magaalo madaxdii Koonfur Galbeed Barawe aan joogno dawlad goboleedka Koonfur Galbeedna laga rabo magaalo madaxda inay ku shaqeeyaan yaan laga ogolaanin Cabdicaiis iyo wasiiradiisu inay halkan ka laabtaan laga bilaabo saacadan halkan waa meel taariikhi ah anigoo dhalin yar sanadku markuu ahaa 1989 markii aan rabay inaan nolol cusub bilaabo waa magaaladii aan ka bilaabay xaaji qamsiintii aan ka soo raacay 1989 bishii Maarso shanteedii halkan aan ku imid kadibna halkan aan doon ka raacay 2 usbuuc kadib waa mahadsantiin martigelintii maalintaas iyo martigelinta maanta reer Barawe hadaatiin xusuusteyda marka waxay tahay bulshadii qadiimka ay beledkii bilnaayo Barawe ma nabadba bulshadii barbaarta ay baarankii ku caanay Barawe ma nabadba badweyntii Hindiya iyo bilicdii ku caanay baanaroomaha loo dhameeyay Barawe ma nabadba bulshadii beeraleyda ay baad iyo baxaariba kuwii beerayayo Barawe ma nabadba bulshadii geesiyaasho Boortaqiiska buuro Barawe ma nabadba intaas waa abaalgudkii soo dhaweyntii 89 iyo soo dhaweyntii maalmihii aan mid halkan waxaa la dhihi jiray waagi halkan mid 89 Barawe waa beled nabada berigii qofkii yimaado waa la baafinaa ilaa hee basarkiisa la ogaado waxaan aad ugu faraxsanahay marka meeshan waxa maanta ka muuqda oo aan rabo inaan qiyaaso tusaale ahaan maalintii halkan aan imaanaynay oo aan dhagaxa dhigaynay waxaan ku nimid helicopter meel la maro ma lahayn dad badani ma aaminsanayn in meeshan ay garoon noqon doonto diyaarado ka soo degaan laakiin si taas loo gaaro wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed iyo dadka walaalaheena oo amisom oo nala jooga oo cadawga difaacaya ayaa naftooda ku bixiyay waxaan leenahay inta ku dhimatay Allah u naxariisto inta ku dhaawacdana ama dhaawac ku gaarana Allah caafiyo laakiin tusaale waxa ah halkan waxa lagu dhisay rabitaanka shacabka Soomaaliyeed wada shaqeynta dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo la shaqeynta beesha caalamka
laakiin waxaa lagu dhisay geesinimada shacabka reer Koonfur Galbeed iyo rabitaankooda iyadoo xabad lagu ridayo inay dhulkooda xoreysteen dhisteenna garoonkan waxay ka turjumaysaa horumarka ummadda Soomaaliyeed dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu marka ay wada shaqeeyaan ma aha kaliya in garoon baraawo laga dhisayo laakiin waxay ku dhowdahay Koonfur Galbeed iyadoo kaashanaysa dawladda federaalka iyo ciidamada geesiyaasha ee qalabka sida ee sharafta leh ee Soomaaliyeed in dhammaan la xoreyn rabo dhulkii Shabeellada Hoose inta dhimanna waxaan rabnaa inaan dhamaystirno waxaan rabaa inaan qof walba oo qayb ka ahayd u mahad celiyo in garoonkan la suurto geliyo waxa kale oo rabaa inaan halkan hortiina ka ballan qaado in 7 kiiloomitir oo isku xiraysa magaalada iyo garoonka inay dawladda federaalku idin ballan qaadayso in la idin dhisayo waa mahadsantiin